soddon sano ka hor ayaa laga joogaa maqaalkan uu lahaa caalimkii fiqiga xadiiska muftiga guud ee Sacuudiga ee geeriyooday Cabdicasiis ibn Baaz. Ujeedkiisa wuxuu ahaa hoos u dhigidda mikrofoonada masaajidada aadaanka iyo aqrinkaba. Allahu akbar, Allahu akbar. Maanta Sacuudiga wuxuu soo xiray doodda mawduucaas waxaana guuleystay fikirkii Ibn Baaz, mid ka mid ah qadiidaha ugu weyn diin ahaan iyo bulsho ahaan ee kiciyay doodihii ugu badnaa. Sacuudiga kaliya ma aha laakiin waa dhammaan dowladaha muslimka iyo kuwa aan muslimka ahayn, ilaa arrinka uu gaaray in gebi ahaan la mamnuuco aadaanka in loo isticmaalo mikrofoonada. Hayya 'ala iyadoo loo qaybsamay mid taageersan iyo kuwo si daran u diida. Sacuudiga arrinka waxaa lagu soo koobay inaan la baahin karin dhammaan dhacdooyinka salaadaha iyadoo loo adeegsanayo mikrofoonada bannaanka maanta kadib masaajidada, laguna gaabsado adeegsiga mikrofoonada aadaanka iyo aqrinka, weliba 30% awoodda codbaahin ee mikrofoonka, iyadoo arrinku uu ogyahay xaaladaha ka jira wadamo kale oo Carab iyo Islaam isugu jira sida dowladda Morocco. Dhaqangelinta sharcigan ee Sacuudiga ayaa sabab u noqday magaalooyinka waaweyn inaan laga maqlin dhawaaqa masaajidada gaar ahaan magaalada Riyaad salaadaha Cishaha iyo Maqribka, xilli ay caan ku ahaan jirtay in dadka magaalada ay qalbiyada ku degsadaan quraanka macaan ee ka soo dhacay masaajidada marka laga reebo labada xaram ee Makka iyo Madiina, iyadoo loo eegayo duruufooda u gaarka ah iyo iyagoona hoostiga wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Sacuudiga, taasoo ay hoostagaan dhammaan masaajidada ka diiwaangashan Sacuudiga. Haddaba maxay tahay daliilka Sacuudiga ay u haystaan in mikrofoonada lagu baahin dhammaan dhacdooyinka salaadaha? Mase jiraan dowlado kaga horreeyay go'aankan iyo kuwo gaara go'aano kasii fog? Wasiirka arrimaha diinta ee Sacuudiga Sheekh Cabdilatiif Al Sheekh ayaa soo daliishaday qowlkii nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. مكبرات الصوت داخل المسجد، بأنه إذا كان الإمام صيتا فلا داعي لأن توضع في داخل المسجد، فما بالك بإزعاج الناس خارج المسجد. wuxuuna leeyahay wax qasbaya ma jiraan in la gaarsiiyo dadka jooga guryaha. Sidoo kale wuxuu leeyahay quraanka oo lagu akhriyo codbaahiyaal bannaanka ay ahaan weyn ku tahay quraanka isagoo aan la dhageysanayn, iyadoo lagu xoojinayo fadwooyinka labada sheekh ee Maxamed bin Saalix Al Uthaymin iyo Saalix Fawzaan Al Fawzaan ee ahaa in mikrofoonada bannaanka loo isticmaalo wax aan ahayn aadaanka iyo aqrinka, iyadoo dhammaan daliiladaas aysan ku qancin dadka sida xooggan u diidan arrinkan ayagoo gaarsiiyay marka hore la mamnuuco heesaha inta lagu soo noqon lahaa dhacdooyinka salaadaha iyo diinta, iyadoo awoodaha Sacuudiga ay ku hanjabeen inay gacan biro ku qaban doonaan ciddii ka hor timaada go'aankan, iyagoo weliba aan caddayn tallaabada ay qaadi doonaan nooca ay tahay, taasoo dhalisay doodo waaweyn Sacuudiga gudihiisa. Go'aan la xiriira aadaanka inaan loo isticmaalin mikrofoonada bannaanka dowladda kama hor timaado ilaa wuxuu dhaliyaa doodo adag, iyagoo bulshada ay u qaybsamaan mid taageersan una arka mikrofoonka inuu yahay cod lagu dhibayo dadka, iyo mid si daran uga soo horjeeda kaasoo u arka go'aankan inuu yahay mid lagu bartilmaameedsanayo dhaqamada Islaamka. Haddaba Sacuudiga hadduu oggolaanin in aadaanka kaliya mikrofoonada lagu baahiyo sida wadamo kale oo Muslim iyo Carabi isugu jira, tusaale ahaan Morocco, waxaa jira wadamo kale oo qaatay go'aano kasii fog, sida in la nidaamiyo codadka aadaanka sida dowladda Masar oo 2012 samaysay hal aadaan kaasoo hal waqti kaliya laga baahiyay masaajidada Qaahira, iyadoo la xadidaya awoodda mikrofoon ee masaajid walba. Waxaa kaloo jira dowlado kale oo gabi ahaanba joojiyay in aadaanka aan laga maqlo masjidka bannaankiisa sida dowladda Indonesia, taasoo laga helo in ka badan 200,000 oo masjid. Haddaba daawade, adiga ma u aragtaa hoos u dhigidda codka aadaanka mid lagu beegsanayo dhaqamada Islaamka, mise waxaad ka mid tahay kuwa qanacsan in aysan jirin baahi sharci ah oo aadaanka loogu adeegsado mikrofoonada bannaanka una arka inuu yahay qaylo iyo cod lagu dhibayo dadka?